بسم الله. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysan. ku dhowaad 10 sano ayaa laga joogaa markii la aasaasay maxkamadaha militariga ah oo si gaar ah u qaada kiisaska dacwadaha khuseeya ciidamada dawladda Soomaaliya iyo dacwadaha loo haysto maleeshiyada ururka Al-Shabaab. maxkamadda ciidamadu si gaar ah waxay isaga xil saartay in sharciga la marsiiyo dadka lagu helo inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada ah ee faldambiyeedyada lagu helo, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay mutaystaan in lagu xukumo dil toogasho ah, intooda badanna lagu fuliyo xukunadaas. hase yeeshee waxaa dhinaca kale jira qaar ka mid ah dadka lagu tuhmaya inay ka tirsan yihiin ururada xagjirka ah oo aan la marsiinin maxkamadaha militariga iyo garsoorka kala toona, kuwaasi oo ku dhinta gacanta dadka soo qabtay. galka baaristu waxa uu diiwaan geliyay ugu yaraan 3 dhacdo oo lagu dilay xubno lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada ah, dilalkaasi oo dhacay iyadoo aan sharciga la marsiinin. aynu tagna magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland. 7 bishii November ee aynu soo dhaafnay waxaa maxkamadda ciidamadu ay dil toogasho ah ku fulisay 5 nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururada Al-Shabaab iyo Daacish. hase yeeshee bishii September ee isla sanadkan waxaa gacanta ciidamada booliiska ku dhintay nin lagu magacaabo Axmed Maxamed Xaaji Aadan Abuukar oo ku magac dheeraa Axmed Gaawo, kaasi oo la soo qabtay 30 August isagoo lagu tuhmay falal argagixisanimo ah. eheladiisu waxay sheegeen in la dilay maalmo kadib. Maxamed Xaaji Eenow waa aabaha Axmed Gaawo. markii wiilkii la xiray aan raadinay ninka u dirnay nabadoonkii meeshii aan u dirnay waxay dhahaan wiilka baaritaan ayaan ku haynaa nagu soo laabo. 3 beri laga aamusay, maanta afraad loo tagay wiilkii ma xaalkiisa war wiilkii meesha ku dhintay anaga dugnay fiiray magarat anaga dugnay dhaheen anaga dugnay wiilka meesha ku dhintay anaga meesha wiilka meesha ku dhintay anaga dugnay war ma noqonaaye wiilka dib baa ka dhashay baa dhalay baa leeyahay. xubno dhinaca amniga waxay galka baarista u sheegeen in Axmed Gaawo lala yeeshay wareysiyo kadib qabashadiisii, kadibna habeen lagala baxay saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso isagoo caafimaad qaba oo lugihiisa ku socda. sidaasi oo kale qoyska Axmed Gaawo waxa iyagana loo sheegay in xabsiga laga bixiyay. waana meel kale soo lagu deeyay marka ninka uu soo gaarnay kadib markii loo keenay wiil asiga bareelaata ay keenay meesha ka geesta ayaa warkiisoo dhashay warkiisoo darsaas ayaa ku reeyay tiriga. wararka dhinaca amniga ah ee uu helay galka baarista ayaa muujinaya in Axmed Gaawo xubno ka tirsan ciidamada amnigu ay kala baxeen saldhigga bartamaha toddobaadkii u horreeyay bisha September, waxaana mid ka mid ah ciidanku uu sheegay inay ku beegnayd 6 September xilli abaarihii 10kii habeenimo ah. kadibna muddo kadib isla habeenkaas lagu soo celiyay xabsiga, balse askartii heeganka ku ahayd saldhigga ay diideen inay qabtaan kadib markii ay arkeen xaaladii uu ku sugnaa oo lagu tilmaamay mid aad u liidata, naf xumina ay ku jirtay sida ay sheegeen ila dhinaca amniga ah. ehelada Axmed Gaawo iyo ila dhinaca amniguba waxay sheegeen in ciidamada ka bixiya xabsiga ay ilaalo u yihiin taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Bari, gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud. taliyaha ayaa ciidanka hoos yimaada ay ahaayeen kuwa marka horeba soo qabtay Axmed Gaawo. galka baaristu waxa uu la xiriiray gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud waxaana uu weydiiyey waxa loo soo qabtay Axmed Gaawo. waxa loo soo qabtay inuu argagixisada la shaqeeyo kana mid yahay. ka bacdi maxaa dhacay? xabsigu ayuu ku jiray, waa laga bixiyay, wuu dhintay. see wax u dhaceen? dhimashada ilaahay ku shaqale qofku asagoo banaanka marayana waa dhintaa, isagoo xirana waa dhintaa, isagoo muddo dheer joogana wuu dhintaa. taasu wax fiican kama taagna, ilaahay baa ku shaqale qofku markuu dhimanayo iyo markuu noolaan. marka laakiin de arrintan gaarka maxaa ku dhacay isagoo u dhintay? wuxuu sababsaday maxay ahayd? ninka qoolkada ma jiraan oo la dhimi karo waxa ka sababay ninka la soo qabtay baaristu ku jiray, baaristu ka dhacay xabsiga ka dhexmintay oo nafaas u dhintay. marka miyuu jiraday oo xanuunsaday xabsiga dhexdeeda seeba ugu dhintay mise waa la jirdilay? adeer meesha tan in lagu jirdiray waxa ka jiraan wata ma jiraan. qofku xanuunku habeenkiina wuu iman karaa, waqtiga doona wuu dhici karaa, ma aha waqti walba wuu xanuunsana. kale aniga wax xanuun oo hadda leysay gudbiye ma jirin, laakiin ninkaas oo dhimashadiisa ayaa laysoo sheegay markii aniga. marka waalidkii waan la hadalay, dad kale oo aan waalidkii ahayn oo madax bannaana waan la hadalay. waxay leeyihiin ninkan waa la soo qabtay sida aad sheegtay, xabsigaa la keenay 30kii bishii August sanadkan ayaa la soo qabtay. 5 maalmood kadibna xilli habeen ayaa laga saaray xabsiga. waxay leeyihiin ciidamadaada gaarka ah ayaa xabsiga ka saaray, ka bacdina xabsiga ayay ku soo celiyeen isagoo naf xun ku jirto. su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan isagoo caafimaad qabaa la saaray,
isagoo nafxun ku jirtana waa la soo celiyey intii ka dhaxaysay maxaa dhacday taliya halkana jiraan waxba ka jiraan maxaan waxba ka jirin ma inuu nafxun ay ku jirtay mise inaan waxba kama jiraan anaa ku cadaynayo waxba kama jiraan muxuu u dhintay marka ileen adiga maadaama ninka aad soo qabatay mas-uuliyad baa kaa saaran aanaad xirtay wuxuu u dhintay ma ka sal gaadhay oo ma ii sheegi kartaa hadda wuxuu dhintay geeri rabbiga baa ku shaqalay wuxuu dhintay ninkaa waa xiraa waana dhintay waxaan la cadeeyey inuu shabaab ahaa iyo nimanka argagixisada ka tirsanaa dadka lain jiray isaga waa dhintay xabsiga ku dhintay dadkii isagu laayey dadka aanaysa maarag laakiin maxkamad miyaad saarteen oo ku xaqiijisay ama ku maaragtay markhaati la keenay oo ku heshay dembi ah inuu dad laayey miyaa la geeyey ninkan sida la ii sheegay isagoo la tuhunsano ah maxaa tidhi laakiin intaan la geynin isagoo xabsiga ku jira dembina aan weli lagu caddayn ayuu dhintay waa lagu cadeeyey dembiga lagama caddayn waa lagu cadeeyey dembiga waa ku cadeeyey marka maxkamad baa ku caddaysay miyaa mise idinka uun intaad wareysanayseen maxkamadda qofka xukunkay ku ridaa laakiin beriiska iyo shaydiga soo diyaariyo dembiga qofku galo ama dembi male waa la yaqaana sharciga loo maro marka intaad wareysanayseen muddadii aad hayseen ayuu qirtay miyaa inuu ka tirsan yahay shabaab inuu wax dilay waa qiranaya qiraalka gaashaanla sare xuseen cali maxamuud waxa uu ku sheegay waraysiga aan la yeeshay in meydkiisa la geeyo cisbitaalka balse waxa uu ku adkaystay inaan wax jirdil ah loo geysanin galka baaristu waxa uu ka helay ilo dhinaca amniga ah in cisbitaalka oo u dhow xabsiga la geeyey kadib markii saraakiisha xabsiga joogta ay diideen inay qabtaan taliya sidee buu qof aad soo xidhay isagoo caafimaad qabaad soo xidhay soomaa ninkan geerida qof suxan ayaa dhintay ninka haaruna sooma dhacday isagoo wadada maraya waa gartay laakiin markaad soo xidhayseen wuu caafimaad qabay sooma kale dee qof xagyagu ahaa wax u qarsoonaa uurkiisa ma jiro marka isagoo caafimaad qabaad soo xidhay waa la waraystay sida aad adu ii sheegayso anu ma ogi ma fiirsan qiraalkaa goobjoogna kama ahayn sida aad ii sheegayso wuxuu qirtay falaal argagixisaa kabacdina wuu dhintay sidee bay arrintaasi ku dhacday sidee ku dhacday maxaa ku jeeda qof caafimaad qaba in lasoo xiro la waraysto kabacdina uu dhinto bal sawir iga sii siday ku dhacday arrintaasi adiga sawirkaasi qof ay kiisii gashay inuu dhinto sababtii u dhiman waayo miyaan u hayaa anuu dhimansado ilaahda u hayo kiis kale oo qayb ahaan shabaha kan ka dhacay magaalada boosaaso waxaa laga diiwaan geliyey magaalada diinsoor ee gobolka baay ee maamul goboleedka koonfur galbeed taariikhdu waxay ahayd 20 Disembar sanadkii 2017 cabdinaasir suufi jaylaani oo sidoo kale loo yaqaano cabdinaasir suufi roobo waxa uu ku noolaa magaalada diinsoor tan iyo intii uu ka soo goostay ururka al-shabaab ee uu isku soo dhiibay mas-uuliyiinta magaalada maalintaasi 20 Disembar waxaa la sheegay in magaalada uu ka dhacay qarax intaasi wixii ka dambeeyey mas-uuliyiinta magaalada iyo helada cabdinaasir waxay isku khilaafsan yihiin sida ay wax u dhaceen waxaanse la isku khilaafsanayn in 21 Disembar uu si aan sharciga waafaqsanayn u dhintay cabdinaasir suufi jaylaani mas-uuliyiinta magaalada qaarkood waxay ku doodayaan in magaalada uu qarax ka dhacay kadibna lasoo qabtay cabdinaasir suufi jaylaani iyadoo falkaasi lagu tuhunsan yahay qaar ka mida mas-uuliyiintu waxay ku doodeen inuu si toosa ugu lug lahaa bamka qarxay oo qof rayid ah uu ku dhintay askarna ay ku dhaawacantay balse eheladiisu waxay aaminsan yihiin in cabdinaasir uu u joogay goobta ay wax ka dhaceen oo suuq ahayd inuu dukaamaysto maadaama uu aroosayey sida ay sheegeen waxayna intaasi ku dareen in markii weerarka bamka ah uu dhacay ay cabdinaasir soo qabteen xubno ka tirsan ciidamada amniga oo xiriir la leh maamulka degmada diinsoor kuwaasi oo uu kala dhexeeyey muran dhinaca dhulka ah maxamed cali isxaaq akhay waxa uu ka mid yahay ehelada cabdinaasir suufi jaylaani waxa uu farta ku fiiqay maamulkii hore ee magaalada diinsoor ee uu hogaaminayey guddoomiyihii hore ibraahim maxamed nuur shigshigow 20 baa lasoo qabtay habeenkii 21 uu ku hoyday habeenka la dilay waxay 21 bisha ahayd 17 marka isla habeennimadii ninkii gudaha loo galay waqti ay goor 5 saac bar habeenimo ay tahay adiga meeshii baa xoogaa lagu jidkeeyey xoogaa jid loo geystay jidkiibaa kolley nimankii meeshay kula dagaalantahay dhida gudihiisa feertan bidixda waxaa daymad laga geliyey ninkii markii feerta laga geliyey daynadii u dhintay ninkii mid ka mid a saraakiisha booliiska diinsoor waxa uu ii sheegay in arrinta dilka cabdinaasir aan weydiiyo guddoomiyaha degmada diinsoor ibraahim maxamed nuur shigshigow oo dhowaan xilkaasi laga qaaday guddoomiyihii hore ee degmada diinsoor ibraahim shigshigow waxaan waraystay 21 Juun 2018
xilligaasi oo uu hayey xilka guddoomiyenimada magaalada waxa uu ii sheegay in bam la dhigay goob suuq ah oo jaadka lagu iibiyo haweenayna ay ku dhimatay 2 askarina ay ku dhaawacmeen waxa uu isagu ii sheegay in ninkaasi uu meel suuq ah uu bam ka dhigay dad shacabahana ay arkeen waxa kale oo ii sheegay in weerarka iyo jirdilka ay u geysteen haween iyo carruur sida uu hadalka u dhigay guddoomiyaha degmada Diisoor waan wareystay Ibrahim Shigshigo waxa uu leeyahay ninkan sida aad sheegtay rabshad baa dhacday bam buu tuuray bambadii markuu tuuray dad baa ku xoomay dadkiibaa maxaan ku idhaahdaa gacan saaray beentiisu waaye ninkii alaab buu iibsinayo markhaatiya loo hayaa oo islaan ilaahay ah asagoo maacuun iibsinaya bacaadaha laga soo qabtay meesha wax ka dhacan in ninkan usumu dhaweyn ninkan asagoo habeenkii khamiis asagoo jimcadii rabay inuu oros galo oo wixii ay diyaar yihiin gurigiisa la sharaxay wixii ay diyaar yihiin arrintaas ku dhacday waxa uu sheegay beentiisu waaye laakiin waraysiga aan la yeeshay saraakiisha kale ee amniga waxay beeniyeen in Cabdinaasir Suufi Jeylaani uu ku dhintay suuqa waxayna iyagu ku doodeen inay jirdileen ciidamada daraawiishta waxa la ii sheegay in la geeyo xabsiga magaalada oo xilligaasi ay gacanta ku hayeen ciidamada daraawiishtu ayna yihiin ciidamadaasi kuwa jirdilka u geystay ciidamada daraawiishta ee xabsiga gacanta ku hayay waxa madax u ahaa Shiine Mayow oo ah taliyaha ciidamada daraawiishta ee magaalada Diisoor xilkaasi oo ilaa haatan hayo Cabdinaasir Suufi Jeylaani wuxuu ahaa nin al-shabaab isku soo dhiibay isku annaga waa soo dhiibay qof walba shabaab isku soo dhiibo oo Soomaali ah waa soo dhiibnaa kadib wuxuu sameeyey santarka magaalada meel ka mid ah oo meel ganacsi ah oo maqaahid ah oo shaah lagu gado ayaa bam ku tuuray oo maartay isheeg adiga isla markii bamki gacantiisa ku dhehday jiru ku jiray askara majid bamku markuu qarxay iyo hore laga soo qabtay asana waa qabtay hada laba qof ay ugu jirtay asagoo ka maartay aan kashaa isku jirnay markii habtiga la keenayay oo arrintaas uu sheegay inay tahay way baxsadeen asagana meesha ku dhintay oo saano aasa id allaana idii magaaladan oo dhibaato u soo wadana maartay anaga qabiil iyo oo shaqo looga jeedo magaalada kama fiirnay si aftaasi anaga sidii shaqaynay id allaana idii markaas maamulkiisa maartay aan gacan jira lagu jeesanayaa shabaabna waa adow uu muddo Soomaaliyeed loo soo diray waaye iisug marka waaye maalinta markii la qabtay 20 December 2017 markii la qabtay xagee la geeyay ka bacdi maxaa dhacay ka bacdi waxa dhacay askara xabsiga ayaa joogtay oo maartay oo xabsiga geeyay dadkii waa la haday hadii la haday qabaari adiga wada la soo qabtay waxa heed ilaa afarta amal ay shaqada oo kuliyay farahanay tobanka saac galabnimada intii waa dhintay waayo isha adiga qof oo dambi kale garasho loo qabtay in aan xablada anaga go'aankeena ma ahayn oo lisku dirimeen in asaas qof oo shacab maanta inuu waayo oo manna bamki labaad ay tuuray taas waa mid waa qarxayo mid wax kama gaarin waa gartay bas waa gartay bamka waan gartay laakiin sidee loo dilay sidee u dhintay adiga maanta aniga ku sheegada ninka banaanka si toos looga soo garaa intii la soo waahana iyo gacan iyo ay ku tafiisana oo maanta oo liiraado bilaadada ayaa oo ninka shabaabka lagu haro ayaa lagu haray meeshii ku dhintay marka isagoo meesha ku dhex jiro dhintay mise xabada lagu dhuftay maya isagoo ku dhuftay ma waqtigiisa ayuu galay dibti iyo garaacaankii ayuu dhintay iyo biila intii ay marka adiga galay ninkaasi wuxuu ahaa nin shabaab ah waa ku gartay taliya Cabdinaasir Suufi Jeylaani ma waxa garaacis buu dhintaa tiri ma booliiska garaacay mise cid kale iyo daraawiishta isla waqtiga uu telefoonkaasi go'ay waxaan mar kale ku celiyay taliya Shiine Mayow hase yeeshee kama uusan jawaabin wicitaanka telefoonka kiis saddexaad oo lagu dilay xubno loo soo xiray tuuhan argagixiso waxa uu ka dhacay magaalada Baardheere 30 December 2018
ciidamo ka tirsan ururka 49aad guutada 10aad qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa toogasho ku dilay 6 nin oo lala xiriirinayay ururka Al-Shabaab kuwaasi oo muddo 5 bilood ah ay gacanta ku hayeen ciidamadu. taliyaha ururka 49aad Xidigle Faarax Cabdinuur Cabdi Turbac waxa uu waraysi uu siiyay idaacadda VOA uu ku difaacay dilka la tuhnsanayaashaasi. waraysigani waxa uu idaacadda VOA ka baxay 1 bishii Janaayo 2019 waxaana waraysigan la yeeshay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed. tirada 6 qof weeye la toogtay. marka ma maxkamad ayaa jirtay la saaray oo soo socotay muddada 5 bilood aad gacanta ku hayseen mise siday u xirnaayeen ayaad soo qabateen oo waa toogtay? dadkan waa la baaray waa la xaqiijiyay qiraal bay wada ahaayeen dadka idilena dad loo wada yaqaanay ahaayeen sida aad la socoto taliyaha xoogga iyo wasiirka shandhiga awmir ay bixiyeen baa jirtay xilli ayaan hore ay 2 jenaraal ay ku dhinteen meesha la yiraahdo afkooyi xilli askar loo sameeyay awmir waxay bixiyeen in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya lagu amraayo laga bilaabo waqtigaas in Al-Shabaab hadii la qabto meesha lagu qabto inay maxkamad u tahay sharciga la waafajiyo anaga awmirka ay ka duulina ayaan fulinay dilkan. marka wax maxkamada oo la saaray ma jirin oo sidaana ay eedihii loo jeediyay iyo aad ku fuliseen? anagu ciidan baan nahay amar baan nala siiyay amarka nala siiyay baan fulinay. maxkamadda militariga oo dilka raggaasi faragelisay waxay xukuntay in dilka raggaasi aan loo marin qaab sharci ah waxayna soo qabatay Xidigle Faarax Cabdinuur Turbac. 4 bishii May ee sanadkan ayaa maxkamadda militarigu waxay ku heshay in ciidamadiisu ay ku takrifaleen awoodoodii ciidan kadib markii ay toogteen maxaabiis ku xirnaa magaalada Baardheere. Xidigle Faarax Cabdinuur Turbacna waxaa lagu helay inuu ku guuldareystay inuu maareeyo ciidankiisa waxaana maxkamaddu ay ku xukuntay 5 sano oo xarig ah. hay-adaha xuquuqda aadanuhu waxay sheegeen in dilalka aan loo marin qaabka sharciga ah ay xadgudub ku yihiin sharciyada caalamiga ah kuwa xuquuqda aadanaha iyo kuwa dawladda Soomaaliya u degsan. xasan shire sheekh waa gudoomiyaha difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee qaaradda Afrika. midka qaanuunka Soomaalida u degan iyo midka gobolka ee Afrika u degan iyo midka caalamiga dhammaantood waxay farayaan in loola dhaqmo dadkaasi inay yihiin marka koowaad dad aan dembi gelin oo aan lagu oogin maxkamad ayna ku caddeyn inay dembiga galeen. waxaan la hadlay qaar ka mid a taliyayaasha lagu eedeynaya dilalkan dhacay ee aan maxkamadda loo marin ama sharciga loo marin waxay leeyihiin dadka aan la dagaalamayna waa shabaab dil bay geysanayaan qarax bay geysanayaan dad masaakiin ayay mar walba bartilmaameedsanayaan wax aan dagaal ahayn iyo gacan ahayn oo naga dhaxeeya ma jirto shabaab umana naxariisanayno. waxa waa khaldan maxaa yeelay hadda waxaad ogtahay dad badan oo dhalinyaradaas ka mid ahaa oo qaarkood madax sare ay ahaayeen oo falal xagga damiirka bini'aadamka uu diidayo geysan jiran ayaa dawladda intii isku dhiibay jagooyin waaweyn oo waddanka ka haya oo hadda la leeyahay maaragtay nabadgelyadayba qayb ka yihiin. marka sidaad usoo dumato oo uga soo leexiso dadkan la jahwareeriyey dhalinyarada ah aada usoo dunto dhanka wanaagsan waa inaad habdhaqankaaga uu ahaadaa habdhaqan naxariis leh oo maaragtay oo aan ahayn qorka goys degdega ayadoon maaragtay maxkamada la iskeynin. cadaaladdu waxay sugtaa dad fara badan oo cadaalad darro xataa u maqnaa ayaa dhici karaysa inay kasoo go-aan kooxahaasi oo hadday arkaan meesha inay cadaalad ka ogan tahay ay kusoo biiraan dhanka wanaagsan ee dawladda. galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiirka amniga ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow oo ay hoos yimaadaan laamaha amniga balse kama uusan jawaabin dalabaadkii iyo telefoonadii aan u dirnay. waxaanse la xiriiray wasiirkii hore ee amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo sidoo kale haatan ka mid ah guddiga arrimaha amniga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. horan arrimahaas waa arrimo runtii yani dhaca aniga naftiisa kaysas badan oo noocaas lamida waa arkay waana yani wayna jiraan waa waxa loo yaqaano extrajudicial killing yani qof isagoo aan maxkamadii la keenin laiska dilaayo ama laleeyahay waa shabaab. waana aragnay yani dad badan oo mas-uuliyiin oo arrimahaas ka hadlaya oo dhahayo yani shabaab meesha lagu qabtaa lagu dilo oo yani hadalkoodii lahaayo dad mas-uuliyiina ka tirsan hay-adaha amniga. arrintaas waa arrin qalada. qofka shabaabka marka lasoo qabto wuxuu u baahan yahay in dembiga lagu caddeeyo in maxkamad la keeno in maxkamaddu ay xukunto oo yani xukunkaasna lagu rido. in dad la iska dilo waa qalad yani iyadoo aan la mashin shuruucda waddanka.